inay si guud taariikhda Soomaalida meel magac dheer kula tahay. Kasako waa goob qurux badan oo si maalinle dadka deegaanka iyo kuwa ka yimaada wadamada jaarka ay ugu dalxiisaan. Halkan waa buurta Kalamadho oo ku taala in ka yar 3 kiiloomitir duleedka galbeed ee magaalada Jigjiga. Muuq ahaan way dheer tahay, dadka qaarna waxayba sheegeen inay cabir ahaan tahay in ka badan 390 feet marka loo jaangooyana heerka badda ay ka sareyso, iyadoo inta badan dadku aysan baarkeeda tagin. Dadka u soo indhoogsi iyo tamasho taga iyo Amaal Yuusuf Aadan waxay ka mid yihiin lamaana iyaga iyo carruurtooda ay dhaleen maanta u soo nasasho tagay halkan. runtii joogan maanta waxaan nimid inaan soo leersano oo magaalada Jigjiga og tahay in population-keedu badan yahay, dad ay ku nool yihiin. marka leers baan nimid inaan maskaxda ku soo furfurno inaan buurtan soo gaarno. marka waxaan soo jeedinahay dadkan aan kula talinahay buurtan horta taariikh badan bay leedahay, oo buurtii sameysay dagaalka lagu galay dad badan naga shahiideen walow guulo badan aynu ka gaarnay. marka dadweynaha waxaan kula talinahay in ay galabtii oo kale ama maalmaha fasaxa jimcaha sabtida xadda shaqaalaha maalmaha ciidaha inay soo dalxiisaan yimaadeen in dadka aad ugu talinahay. ما شاء الله جو أد قرح بدن ويان مقالة إن صلى الله عليه وسلم بحني بورها مدوكا جو دقندي رنتي أد قرح بدن تماشو مال أد قرح بدن مال جو دقي هاي رنتي Iyalka soo kaxaysan ها ما هو ندرنا هرير كيو دنبا galabta halkan aad ku casriyeynaysaa. ها جو دقن ما نكو قادنا هالكن waqti tele bajis xoogaa adula fiidkoon ka baxay maqribka marka bixidana hadii la yiraahdo imika maanta way igu horeysaa laakiin insha Allah wixii ka dambeeya waanta arkaan soo noqonaya aad runtii dadka biyaha jooga oo kale aan wali xagan soo aadin maxaad kula talinayd inay imaadaan sida ciidaha maalmaha jimcaha inay imaadaan runtii baan oranahay. runtii aniga khaas bay tahay horta ciyaalkayga iyo family-ga la socda. dadka xaasaskan waxaan kula talinahay in ay ubadkooda iyo xaaskooda iyo family-ga ay soo wada kaxeeyaan si ay ugu nafisaan meesha oo ay maskaxdooda aad ugu furfurato. timaan ka hor ayay ahayd markay wasaaradda dalxiiska dalka Itoobiya sheegtay in lagu qaban doono xuska dalxiiska dalka Itoobiya, walow markii dambe xukuumadda deegaanka ay ka hor yimaadeen. kuwana waxay ka mid yihiin dhalinyarada iyaguna uga soo banbaxay magaalada inay jawi ka bedelan kii magaalada ee halkan ku qaataan. qaar ayaa sawir-galaya halka kuwa kale iyaguna u soo qaateen cuntooyin. goobtan horta waxay ku caan tahay in lagu soo dalxiisaa magaalada oo dhan way timaadaa markay dalxiisaan u imanayso. marka xaggan waxaan u imaaday inaan ku dalxiiso sawiraan oo galgaliyo maanta. marka maxay kaga duwan tahay goobaha kale dalxiiska ah sida doog meelka cagar maadaama jiraan waxay kaga duwan tahay ma garanaysaa in waa meel aad u qurux badan kowdhe. marka garanaysaa aad ka heli karto wax walba oo xoolihii baa daaqayo, ma garanaysaa afartan dhinac buur baa ku gidaaran. marka saasi kaga duwan tahay oran karaan. marka goobtan kala timaado dareen noocyo ku galay wallahi meel ma garanaysaa iska habiya kowdhe buuq badan aan lahayn wad ku nasanaysaa meel lagu nasan karo ma oran karaa. صح Cabdiraxmaan Buux telefishinka Home Cable buurta Kalamadho ee duleedka magaalada Jigjiga. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. anigu se waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore igu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha.